waayahay haddana waxaan eegaynaa xaaladii carabta dhanka diinta waxay macnaha ka diin dhiganayeen. awaliintii horo ummada carbeed dhalay ismaaciilka nabiga abaa ku aadanayo islaamnimada bari jiray, dabadeed seluma oo diintuu ka tegayo dariiqii ka baydho daaquud la raacayo shirki bay danmoodeen. camri binu luxay oo cidda reer khusaaca oy caleema saaren baa ceeba dhigayo cibaadada asnaamtiyo shirki buu cidii baray. cibaadaysigiisa caamadu ku raacdo qisyaankuu falaayay camal toosan moodeen, ciriiriga kufriga iyo caaqiba xun buu baday. nuux samanadiisii sanamyadii ahaa buu kana siiyey carabo, midba saaxa gaariyo saldhig bay u yeeleen. sanamkii wadi ahaa cawf baa walwaasho, wiilkii uu dhalay buu cabdi wadi u bixiyo, togawaadulquraa buu wasankeeda ahaa. hudayl haybaheedii hareeraasuu wacbay, iska hoganayeenoo hoodaysanayeen. yaman beelaheedii yacuuq iyo yaquud iyo nasri baa u yiilo u yeeryeerayeenoo ilaahyay ka yeesheen. mushallal meel la odhan jiray manaat baa ku yiilo, inta reer madiin iyo khusaaca macbuudsaday. laatana bannaan iyo waa buur caddaydoo barabara qurxoon iyo naqshaduu ka buuxeen. bayd bawgu yiilo beeshii thaqiif iyo barbarkaa wixii degay barakaysanayeen. wax la yidhi bilowgii nin loo wada bogaayo, baariyo waxtarahoo socotada uu beer nugul baa budulka xaajiga barbarkiisa degi jiray. berigiigu go-ayo buqcadaan la dhigayo, waxay uga barteen iyo bartiisii la waayaa, qabrigii waxbadiiyo barakaysi loo tegay. watan caan ahaayo cusa loo yiqiino, caawima adduuniya cuud laga filayaa, ciriqlay korkeediyo carrigii naqla ahaa. waa guri u saaraa 3 geed korkoodoo sutuur lagu daboolo, la siyaaran jirayo saadin buu lahaayo, sawd baa ka bixi jiray. inta qoomam caabuday qaalmaha ku xidhi jiray, qiimaysay geedka bay qureeshu weynayd. boqolaala sanamo barbarada kacbada iyo bartankeeda yiil buu hubal ugu barweynaa. khadcam duriyadiisii daws iyo bajiilo dagi jiray tabaala dulkhalaasa caabuday. wataniya daraydoo dulli iyo qumaata baadiin la moodo dadka badankii raaceen. niman dhabe ku joogo dhul cidlaa maraaya, intay dhagaxya ururshan midka ugu dhalaal badan ka dhigtaan ilaabay, inta kale dhardhaarada dharigii ka yeelaan. jinkay caabudeen oo khayraad ka jiriyeen, toga jeexyadiisiyo kii jabad cidlaadaga jinniyada qarsoon buu magantooda jirin jiray. sayidkii jinkiiyow adigaa jiwaar leh, juhaladaada iga qabo buu ku jiifsan jirayoo jawaabteeda filan jiray. xeerkiyo shareecada xagga kuwanadooda xukun loogu tagayo oo wixii ay xaqmoodaan laysaga xasili jiray. maxay xeerar shaydaan reeruu xurmeeyeen, xaaraan qadci ahayd xalaalaysanaayeen, maxay xoolihii qaar iska wada xarimayeen. inkastoy dayoobeen dariiqii ka baydheen, diintii ibraahim wax ka daba yar baa jiray. rabbigii dadyawgiyo duniday yiqiineen, midkuu doona dilayo midkuu doona dayin kara, laga daba hadlaynoo difac loola iman karin. shirki baa rogaayay rabbi waa yiqiineen, inuu ruuxa geliyo rubadooda goyn karo, roobabkay cabaayan risqigiisi uu yahay. risaalooyin hore iyo nabiyay rumeeyeen, ibraahim israacsho rixin bay ku sheegteen. sila iyo salaad iyo soonka waa yiqiineen, sadaqada la biciyo soorya looma sheegay. 3 bilood buu xaajigoodu socon jiray, dawaafkoo subaaciyo bay samayn yiqiineen. safaa iyo marwada iyo sacyigay abyaayeen. maalinteeda caraf iyo mawsimkay ilaalsheen, mina iyo musdalif iyo mashcarkay istaageen.
tuuryada jamrada iyo timaxiid ma moogayn gowraca tobnaadkiiyo tashriiqay yiqiineen bilihii xurmada bay balaayada nibcaayeen aabba kii bireeyey birta kala baqaayeen colaaday bilaabeen fijaar bay u bixiyeen xaramkii makaad bay xurmo weyn u yeeleen ruuxii xadkii gala xagtin looma dhimihayn xayawaanadiisay xaaraan ka dhigayeen taakulaynta xaajiga sharaf bay ku tiriyeen waa loo tartamay oo tolal bay isku hayn jiray kuwa taagan maantay uga turid badnaayeen tarxiil uma dhowayniyo inay turuntureeyaan kay jinaabo gaandhay jidhka maydh lahaayeen sino lama jeclaynoo jidxunbay ku sheegeen inkastoo wax jiriyo juhaladu badnaayeen waayahay haddana waxaan eegaynaa dhankii siyaasadda iyo arrimaha bulshada ummadaha carbeed marna dowlada qudha oo dalkaana tal lama arag qabiilooyin dudayo isilay ahaayeen mid waliba duqeeday iska dabagalayeen dagaalay hadiya jeer isu hurin jireenoo hiilada qabiilkay ku halaagsamayeen baroortii basuusba bakar iyo walaalkii isku baabasheenoo boqorkoodii uga lumay midigtii jasaas iyo mawdkii kulayb iyo markuu muhallal wayracay bay madhatay nabadii wax walboo maslaxa oo nabad loo maraayo madax ay ka talisu maqli maaya odhan jiray boqorkii kulayba kibir loo warmeeyay isagoo aan ka harhayn may keeni buu yidhi haddii aadan taa karin seefaha kulaylka leh kor u yeesha buu yidhi bakaroo aan kala lumin kulligeed babaabiin warma aan kilkila iyo kurinaan jaraayiyo kooraha ku joogiyo kadeediyo ba mooyeen kala guuray nabadii gugii 4tanaad bay gulufyada ku gaareen iskumaadayeenoo rixinkii ku gooyeen mayd gorobsan meel iyo gorgordagii arkaayeen ilinaan go'ayn iyo gami waa ku joogeen cidihii qadfaan cabas iyo dibyaanba cimri dheer islayn jiray 40 dayrood nimankii dagaalamay waa duul walaaloo darisoo isxigi jiray daxis iyo qabraabo dabka weynka hurayo dulmigii xudayba dagaankii la barakacay khasraj iyo walaalkii ilma qayla waatay qarni dirirayeenoo qudha layska jari jiray markii uu qaboobaba qarax baa xigayo qoomam reer yahuudo qaribaad badnaaba sharka sii quwayn jiray olaadaa xidhiiriyo ceebaha ka hari jiray iyo cuud yaraantiyo cidhiidhiga adduunka carruuraha ku diri jiray gabadhii u dhalataa aabbahay gunnimo iyo weji gabax ku tahayoo golayaasha reerku geesaha ka mari jiray ragaan gabadhba korinoo godku aasabaa jiray dulmi lay isku dila iyo dooxatay lahaayeen duunyada la soo dhaco duulal baa ku noolaa sacaaliik waxaa jiray saxaraha wareegoo seefahooda mooyeen cid wax siisataa jirin carrada nin marayo cid waxyeelihaynba la cabiidsan jirayoo cuud lagala bixi jiray khamraday cabbeenoo ceeb lama ahaynoo caqligii raggii iyo cuudkii ku baabay dumar caasiyoobo cirdigooda iibsho calaamada uu gaariyo calandheer mutaajiray inkastoo idanxumad iyo diin li'idu weynayd dabeecadaha qaar bay dadkii waayadaa jiray kuwa maanta jooga uga dooranayeen waxay daryeeleen darajooyin geeyeen deeqsiga waxbixiyiyo geesiga dagaalkiyo ninka doodyaqaanka dad xoroobay weeyo dabcigoodu qabatimay la dulaysan karinoo boqorradu ku daalaan xujri iyo kulayb iyo
xirakii ka talin jiray markii ay xaddhaafeen dadkii xoog u sheegteen xayaatadii ku waayo midba wiil xoraa dilay ninka maatidiisiyo magantiisa kii gala lama maagi jirinoo mawdkuu ka xigi jiray faseexada bayaankiyo fahmamay lahaayeen fududaynta hadalkay farsamayn yiqiineen kuwa gabayga odhan jiray aqoontiisa loo qiray aadna looga baran jiray afar baa u waaweyn acsha abubasiir iyo abwaanada suhayr iyo naabiqaa la odhan jiray iyo waa imri ilqays ugu edab xumaan jiray cantar binu shadaad iyo camri binu kaltuum iyo darfa binu cabdiga iyo cabiid iyo labiid iyo curwaa iyo durayd iyo rag kaloo curshaa jiray maansooyinkoodana 7 ka miirmeen midba meel ka timidoo mucallaqa u bixiyeen dumarkuna majaalka kama wada maqnayne qaar marin yaqiinoo magacaaban baa jiray mansadii khansaaba maalmahan la mariya siirada udgoon waa kitaab wanaag ku sidaye warwaasaacay wadada loo sitiyo socoshadeediye sahal buu wuxuu ku baraa siiradii nabiye sifadii rasuulkii alliyo suu ahaan jiraye salafkii horreeyo raggii diintan noo sugaye silicay mareen iyo waxay sabar lahaayeen